wuxuu macsalaamiyey xaaskiisa iyo afartiisa caruura wuxuuna u baxay safar magaalo kala si uu shaqo uga raadsado. saacado kadib booliska ayaa soo wacay xaaskiisa oo ku yiri ma adiga xaaska Hebel. waxay ugu jawaabtay haa waa aniga. waxay ku yiraahdeen samir iyo iimaan Allah ka siiyo. baabuurkii uu watay ninkaagu shil ayuu galay. dhammaan dadkii saarnaana waa ay dhinteen. xaaskii aad bay u naxday markii ay maqashay warkaas, balse ma ooyin mana qaylinin. waxa kaliya ay tiri ayaa ahaa alxamdulillaah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. wuxuu uga tagay afar caruura iyaduna waxay la noolayd qoyska ninkeeda. wax yar kadib qoyska ninkeeda ayaa bilaabay inay dayriyaan oo mas'uuliyadda daryeelka ilmaha ay qaadi kari waayaan. waxayna yiraahdeen anagu mas'uulka ma noqon karno koritaanka iyo ilaalinta ilmahan ee meelaha la aad. kadibna waxay go'aansadeen inay gabadha iyo caruurteedaba ka saaraan guriga. hooyadii waxay qaadatay caruurteedii iyadoo ooynaysa waxayna u hoyatay guriga aabaheed. qoyskeeda si diiran ayay u soo dhaweeyeen wayna la noolaatay. muddo kadib hooyadii waxay dareentay inay culays ku noqotay qoyskeeda. walaalaheed oo dhammina waa ay wada guursadeen. mararka qaarkood waxay maqashaa qoyskeeda oo ka hadlaya in caruurtu culays ku yihiin reerka, kharashaadkoodana aan la dabari karin. hooyadii aad bay uga murugootay hadalladaas waxayna u damqatay caruurteeda la dhibsanayo. ma aysan rumaysan karin in qoyskii ay ka dhalatay sidaas u hadlayo, iyagoo ah dadkii ay filaysay inay garab istaagaan. habeenkii oo idil way seexan weyday. subaxnimadii waxay kaxaysatay caruurteedii iyadoo aan cidna ogeyn ayayna guriga ka baxday. waxay la wareegtay caruurteeda iyadoo raadinaysa meel ay ku hoydaan. dadaal dheer kadib waxay aragtay meel dhufaysa, geeda dhaadheerna ay ku hareeraysan yihiin. halkaas ayay ka bilowday inay ka samayso guri yar oo ka samaysan laamaha geedaha. markii ay dhammaysay ayay fiirisay caruurteeda yaryar mise way gaajaysan yihiin. qalbiga ayaa xanuunay wayna oyday. gacmaheeda ayay kor u taagtay iyadoo leh ilaahayow dadka dhulka jooga way iga tegeen, qoyskaygii iyo asxaabtaydiina way iga fogaadeen. maalintan maanta ah waxaan ahay keligay. ilaahayow yaa ii haray haddii aad adigu idayso. adiga ayaa naftayda iyo nafta caruurtaydaba kuu dhiibay. noo daryeel ilaahayow, adigaa naxariis badana ahe. markay ducadii dhammaysay waxay caruurteedii ku tiri iska jooga gurigan yar hooyo ilaa aan ka soo laabto. kadibna waxay u baxday si ay cunto ugu raadiso. in yar kadib waxay hor timid makhaayad weyn. albaabkana waxaa taagnaa waardiye. waxay ku tiri halka aad cuntada soo hartay dhigtaan waa xaggee? waardiyihii wuxuu ku jawaabay bacda qashinka gadaasha makhaayadda ayay taallaa. hooyadii waa ay farxday waxayna isla markiiba tagtay makhaayadda gadaasheeda. laakiin markii aragtay cuntadii waxay aragtay cunto aan la cuni karin oo cayayaanka iyo duqsigu uu dul hoganayo. hooyadii waxay u baqday caafimaadka caruurteeda wayna ka tagtay meeshii iyadoo sii wada raadinta cuntada. waxay dhex socotay wadooyinka waxayna eegaysay meelaha lagu tuuro harharka makhaayadaha, balse waxay arkaysay mar walba cunto aan nadiif ahayn. hooyadii waxay dareentay daal iyo madax xanuun, caguhuna way barareen socodka faraha badan awgiis. waxay go'aansatay inay wax yar nasato waxayna fadhiisatay geed hoostiisa oo ku yaala geeska wadada. markaas kadib waxay isxasuusisay in caruurteedu ay sugayaan oo ay u baahan yihiin cunto. mar kale ayay istaagtay iyadoo daal la liicaysa waxayna usii dhaqaaqday raadinta cunto. hooyadu mar kale ayay bilowday inay baarbaarto qashinka, laakiin cunto fiican kama aysan helin. waxay u leexatay dhanka kale ee wadada iyada oo rajaynaysa inay wax fiican hesho, laakiin dhammaan dadaalkeedii waa uu fashilmay. hooyadii oohin ayay bilowday. meesha ay joogtay waxay ahayd meel ka fog halkii ay caruurta uga tagtay. waxay fiirisay cirka iyadoo leh ilaahow adiga ayaan kuu soo jeestay, adiga ayaan ku baryayaa. eeg addoontaadii daciifka ahayd. markii daal, niyad jab iyo raje beel isku darsameen waxay go'aansatay inay caruurteeda ugu noqoto gacmo madhnaan iyo qalbi jab. ilmo sida roobka u da'aysa ayaa indhaheeda ka socda iyadoo ku celcelinaysa ilaahow adigaan ku tala saarannay, adigaa nagu filan. alxamdulillaah alxamdulillaah. markay gaadhay halkii ay caruurteeda kaga tagtay arrin aan la filin ayay aragtay. waxay aragtay caruurteedii oo fadhiya hortoodana ay taallo cunto badan oo wanaagsan. waxaana ag fadhiyey nin muuqaal ahaan wanaagsan oo u eg qof deeqsiya oo taajira. hooyadii waa ay yaabtay waxayna ku tiri ninkii kumaa tahay walaal? ninkii ayaa ugu jawaabay anigu waxaan ahay addoon ka mida addoommada alleh. waxaan leeyahay beerta ka dambaysa iskuulkan, laakiin shaqada beerta walaalahay baa maamula. aniguna waxaan maamulaa shirkado kale. maanta markii aan ka soo laabtay shaqada qur-aanka ayaan ka akhrinayay telefoonka. wax yar ayaan seexday waxaana ku riyooday in beertii gubanayso. waan toosay anigoo argagaxsan. baabuurka ayaan si degdega usoo kaxaystay. markaan imid beertii waxba kama aysan dhicin. markaan ka soo noqday beerta waxaan istaagay teendhada geedaha laga sameeyey. waxaan is iri aan eego halkan. waxaan arkay caruurtaada oo keligooda. weydiin kadib waxay ii sheegeen in aabahood dhintay. waxayna ii sheegeen inaad cunto u raadisay. markii aad soo daahday ayaan cunto usoo iibiyey. hooyadii waxay ku tiri ninka ilaahay baa iga fogeeyey cuntooyinkii qashinka ahaa. mar kasta oo aan u dhowaado waxaan ku arki jiray duqsi iyo cayayaan dul hoganaya, anigoo garan waayey inay tani ahayd mid dhanka alle ka timid. ma ogeen inuu rabbi u soo dirayo caruurtayda qof cunto nadiifa u keenaya. alxamdulillaah kun jeer ilaahay baa mahad leh. ninkii uu yaabay wuuna garwaaqsaday in arrintu aysan ahayn wax iska timid, balse ay ahayd qorshe alleh. iyada uu arkayna ay ahayd digniin iyo inuu halkaas yimaado oo ahayd fariin rabbaaniya. ninkii ayaa markaas hooyada ka codsaday inay u sheegto
sheekadeeda. Markii u sheegtay oo ay oyday, wuxuu ku yidhi, Ilaahay ayaa ii kaa soo diray adiga. Ilaahay dartii baan kuu guursanayaa si aan u daryeelo adiga iyo carruurtaadaba. Ninkii wuxuu qaaday hooyada iyo carruurteeda, waxayna wada tageen guriga waalidkeed si uu u weydiisto. Uu guursaday, kadibna waxay u guureen gurigiisa weyn iyagoo carruurta wata.